akhyaarey daraag wax la yidhahdaa soo baxay oo musiibo kala ah oo dal iyo dibad haddii dadkeennii bannaanka aaday ee yurub iyo amerika iyo asia iyo afrika aaday ay maalin walba odayaashii iyo maamooyinka halkan imaanayaan oo leeyihin ilmihii baan la soo cararayaa ilmihii baa dhaqan xumo iga baranaya ilmihii baa iga baranaya laakiin ayba u imaadaan beera xashiish oo ilmihii xaggee lagu soo celinaa marka xaggee la keenaa hadday masaajidkii qaylo ka soo yeerto xaggee la aadaa dhibaato aad u weynaa jirta oo dhinacaas ku saabsan jaamacadii buu galay iskuulladii buu galay suuqii buu galay qaarkoodna waabaad ogtihiin oo waxaaban u tagnayba asagoo la waardeeyo oo ciidamo iyo teknikooyin lagu waardeeyo foostooyin la karinayo waad arkayseen waxaan u baahannahay dhallinyaradeennu inay ayadana arrintaas in ay dagaalkaas qayb ka noqdaan way ku mahadsan yihiin gobolka banaadir iyo hay-adaha amniga hogaaminaya magaalada muqdisho waxaan rabnaa inay ka bilaabato dowlad goboleedyada waxaan rabnaa in shaqada halkan ka socoto dalkao dhan ay ka socoto waxaan rabnaa in la dabargooyo waxaad ogaataan waxaas inay beero jiraan soo go'a beerahaas waxay ku yaallaan nimanka diinta sheegta ee dad badan dhowr iyo 10 sano 5 iyo 10 sano 6 iyo 10 sano been inoo soo akhrinayay ee lahaa kitaabka ilaahay baan ku dhaqmaynaa diinta ilaahay baan lagu dhaqmayaa meeshay joogaan ay beerahaasi ku yaallaan oo ka soo go'da intaas hay ugu filaata shacabka Soomaaliyeed khawaarijtu waxay yihiin qaar baan moogtahay markii hore daahirka lagu siraayo garka weyn iyo salaadan iyo tii nabi uu noo sheegay haddaad salaadooda aragtaan iyo cibaadadooda aragtaan tiidi wax isdhaaftaan malaha idinku muslimiin ma tiidin marka dadka ay taasi khaldaysayo ha kugu filaato daraaga iyo jawaanada xashiishka meesha lagu beeray laga keenay waa meelaha ay ayagu joogaan marka waxaynu u baahannahay dagaal caalamiga ka galo